gabar Falastiiniyad ah oo ku nool marinka Gaza ayaa doonaysa in ay natusto nolosha Gaza oo aan badana la arkin. waxa ka dhacay ilaa iyo 3 dagaal oo u dhaxaysa Hamas iyo Israa'iil ama kooxaha kale ee dableyda ah. dhaqalaha Gaza ayaa sidoo kale cakaran kadib markay go'doomiyeen Masar iyo Israa'iilba. laakiin Khulud Nasar ayaa iyadoo isticmaalaysa barteeda Instagram-ka doonaysa inay soo bandhigto waxyaabaha wanaagsan ee nolosha Gaza. sawirka kaliya ee dunida ku faafay marka la eego Gaza waa mid dagaal iyo burbur, laakiin sawirkaasi maaha mid dhameystiran. anigoo isticmaalaya boggayga Instagram-ka waxaan sawiro ka qaadaa waxyaabaha qurxoon oo indhaha soo jiidanayo. Gaza waxaa laga haystaa sawir dhimasho, laakiin waxaa kaloo jira kumanaan sawir oo ka tarjumaya nolosha Gaza. meelaha aan aadka ugu soo noqnoqdo si aan dadka wax uga baro waxaa ka mid ah meelaha taariikhiga ah ee Gaza. weli waxaa ku yaala meelo qurux badan, fariin rajo iyo nololba kugu abuurayo. waxaan jeclahay inaan dadka sawiro iyo sida ay nolosha u jecel yihiin, dadka shaqaysanaya iyo dadka ay sheekooyinkooda ku dhiirigelinayaan si aan dunida ugu soo bandhigo. khudaarta sida zaytuunka weliba waqtiga guga waxaa Gaza ka soo baxo kumanaan nooc oo ubaxyo ah. go'doonka saaran Gaza ee socday muddada dheer wuxuu dareensiiyey dadka reer Gaza oo idil inay neefta ku dhegan tahay, laakiin waxay dadku haystaan hab ay ku wada xiriiraan sidii baraha bulshada, taasoo u sahashay inay dunida la socdaan, taasoo ah xurriyad yar. dadka ku nool Gaza banaankeeda markay sawiradeeda arkaan waxay i weydiiyaan, tani ma Gaza? ma sidan oo dhan ayay u qurxoon tahay? ayna ahayn inay gasho. xataa aniga la igu yimid kambanigayga xafiiskiisa oo la i weydiiyay waxaan ilaa meequu sii jiri karaa bil iyo labo. ma ahayno inaa yahay iska gado. maanta alxamdulillah meesha aan joogno adinka markhaati ka ah. muhiimada ma aha ina adiga adab iyo hanti iyo leedahay, laakiin ina adiga waxa taqaano oo wax ka qaban karto, niyadna u hayso sameyn kartid. waxaas oo dhan waxa ka horeeyay intaana jaamacada aanan galin yaa aniga ku fikiraya sidee tiknoolajiyadan aan qayb uga noqon karaa. Sahra waxa ay leedahay shirkadda Sostec oo ka shaqeysa soo saaridda barnaamijyada telefoonada iyo software. haddana waxa ay ku dadaalaysaa sidii ay dhalinyarada ugu dhiirigelin lahayd in ay bartaan tiknoolajiyada. waxay aaminsan tahay in Soomaaliya ay u baahan tahay la qabsiga isbeddelka tiknoolajiyada caalamka ama ay ka hari karto dalalka deriska la ah. tiknoolajiyada qof kasta ninka baadiyaha joogo yaa u baahan. hadda shirkado badan oo waxaa jira nasoo weydiinaa mesela waxay ku leeyihiin waxaan u baahanahay in loo bedelo xabagtii aan soo dhoofino inay loo bedelo system. problemiska haysto oo dhanka tiknoolajiyada ka haysto gaar ahaan ecosystemska wax la yiraahdo softwareada ay ku maareyn lahaayeen noloshooda, ganacsiyadooda, xisaabaadkooda, haday ahaan lahayn mobile applicationska, haday ahaan lahayn inay digitalka ay ku biiraan. sida lagu sheegay cilmi baaris la sameeyay sanadkii 2007 11263 arday ee jaamacadaha Soomaaliya ka qalin jabiyay 3 meelood hal meel oo kamid ah ayaa dumar aha. dhanka kombiyuutarada iyo isgaarsiinta dumarka ka qalin jabiyay 9% oo kaliya ay ahaayeen, kuwaas oo badankoodu ay ku adkaatay inay shaqo helaan, balse gabdho badan ayaa weli jecel inay guul ka gaaraan dhanka tiknoolajiyada. gabdhaha way ku yar yihiin IT-ga. waxaa u maleynaa sababahaas waxa keenaya in la dhiirigelin la'aan iyo inaan lagu taageerin barashada IT-ga iyo midda kaleeto oo ah in laga dhacsiyo gabdhaha ma bara kartiin oo industry u gooni ah ragga. sababahaas u maleynaa runtii waxa ay aaminsanahay in loogu talagalay dumarka loogu talagalay industry-gan sababtoo su'aale marka u soo qaadanayo kale
waa macnaha waxa ka shaqeyn kartaa shaqo ay noqoto oo kale gurigaaga ka shaqeyn kartaa gabadha maamo ay noqoto oo kale guriga ay joogto gurigeeda dhexdeeda shaqo ka abuuran kartaa iyadoo by online ku shaqeysanaysa iyadoo Soomaaliya wali ay ka soo kabsanayso colaadaha dawladda waxa ay miisaaniyadda ugu badan ku bixisaa dhanka amniga dhanka teknolojiyadana wali maalgelin lagu ma sameyn si kastaba Sara waxa ay ku kalsoon tahay in dhalinyarada gaar ahaan haweenka ay qayb ka noqon karaan isbeddelka dhanka teknolojiyadda Soomaaliya ee mustaqbalka waagaag baleemankan haddii aan eegno wararka ciyaaraha ee caawa ciyaaro ka mid ah horyaalka Ingiriiska ayaa caawa la isku babacdhigaya waxaa safka hore kaga jira ciyaaraha indhaha lagu hayo Newcastle oo martigelinaysa kooxda Manchester United oo doonaysa inay sii xajisato dardarta cusub ay la soo baxeen tan iyo markii macalinkoodii hore Jose Mourinho lagu bedelay tababaraha kumeel gaarka ee hore kooxda uga ciyaari jiray Ole Gunnar Solskjaer kulamada kalena ee Chelsea ayaa martigelinaysa Southampton Crystal Palace-na waxay u safraysaa Wolves West Ham-na waxay la ciyaari doontaa Brighton inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka caawiya caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaan mar kale dib u kulmi doono waxaan idinka ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo